بسم الله الحمد لله الذي كفى وبه نستعين على امور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. halkan waxaan ka salaamayaa inta magacayga iyo muuqayga u garanaysa qaybteeduna ay tahay Soomaali. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Salaan kadib waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin xalay aan ka seexan waayay oo aan aad ugu galgashay xalay hurdadana runtii xalay ii diiday. arrintaasi waxay tahay saad wada socotaan waxa socotay doorashooyinkii golaha shacabka, gaar ahaan waxaan ka rabaa inaan ka hadlo qaybtii Puntland. laba degaan doorasho ahayd. degaan doorasho waa soo dhammaaday oo ama haddii wax ka harsan yihiin wax badan kama dhino wuxuu ahaa Garowe. siday wax uga dhacaan waa la wada soconaa oo ka dhaleegsanahay oo konton iyo afraad baa la geeyey. konton iyo afraad waxaa loo geeyey uun baana jirin. Soomaalidu waxay ku mahmaadaa sacabka maxaa habeenkii loo tumaa haddaan xeeladi ku jirin. hadday wuxuu xalaala oo daafuran ay yihiin konton iyo afraad oo Puntland kasoo asaasantay meeshii Puntland kasoo asaasantay oo xero ciidana laguma qabteen si doorashooyinkii hore ayaa waxaa lagu qaban lahaa hoolasha jaamacadaha iyo meelaha babliga oo dadka dhexeeya. taasi marka waxay ku caddaynaysaa laba shay wuxuu yahay Puntland wixii la oran jiray inay dib u noqotay oo halkii ay kasoo bilaabantay oo konton iyo afraad ay maanta joogto dib uga noqotay. taasi waa qodob waa ku caddaynaysaa 23 sano kadib inay raadar dib u raacday. arrinta kale caddaynaysaa waxay tahay waxa meesha yaalla inay wax xalaal ah iyo wax daafuran iyo wax ummaddu ay og tahay iyo wax ummaddu ay raalli ka tahay midna aanay ahayn. dadkii xaqa u lahaana ay iyagoo qaylinaya dusha laga mariyay oo habraaca iyo deegaanka iyo dhaqanku intaba ay siisay oo lahaa. okay, taa waa laga soo gudbay. waxaa hadda loo soo qalab qaatay meeshii loo jeedina doorashadii labaad oo Abari Boosaaso. waxa ay soo gaadhaya oon ka warhayaa in teendhooyin uu ka dhisanayo Xaaji Siciid meeshii la oran jiray BNBF iyo airportka dhexdooda, halkaas oo uu rabo inuu ka dugaarsado xero ciidan oo kale oo la yidhahdo ciidanka BNBF-ta, dadkuna ay saaraysa u yaqaaneen, kaas oo ah ciidan imaaraadku uu gacanta ku hayo ama imaaraadku uu maamulo. waa ciidanka uu Siciid halkaa u galo isku hadlaynayo. waxa uu kaloo tusinaysaa inuu ku dhawaaday wiilkii uu meesha geystay ee walaalkiisa ahaa oo meesha uu geystay oo BNBF u dhiibay inuu rabo inuu dabada la galo oo halkaa dugaal iyo dugsi uu gaday. taasoo tusinaysa laba arrimood oo kale. arrin ah inuu ceyd ka yahay dadkii Puntland, hadday ciidan tahay iyo hadday dhaqan tahay iyo hadday aqoon-yahan tahay iyo hadday siyaasi tahay iyo hadday dowlad tahay, intiiba inuu ceyd ka yahay oo halkaa dabada la galay cabsi uu qaba oge. waxay kaloo tusinaysaa qodobka labaada inuu doonayo xaaraanteedii inuu doonayo halkaa inuu wuxuu rabo ka sameeyo oo doorashada ah. waxaan marka guud ahaan marka hore la hadlayaa dadka degan gobolka Bari, gaar ahaan isimada iyo odayaasha dhaqanka. waxaan leeyahay kuraasta halkaa taalo 16 ah idinkaa leh, Siciid ma leh. deegaankaa idin siiyey oo dowladnimada idin siisay oo habraacaa idin siiyey oo waa xuquuqdiinii iyo xaqiinii ee wax Siciid leeyahay maaha suu doonana oo ka yeeri karo. arrintaas maadaama ay saa tahay, Siciid majaal ugama fura. dowladdu inay fasiliteed karayso keliya ayaa uga furan. saasaa la isku ogaan raacay. marka waxaana moodaa Siciid inuu sheerka ku sito 16 qof oo uu wato. ama waxaan qabaa waa riyadaas iyo rumoobi oo weliba dhaqanka dadka dhaqanka ah
oo bari joogo ama dadka liidka wax garanayo warbaryahan dambe waad midaysaneydeen oo mid baad ahaydeen oo ummad isku xiran oo isku tiirsan baad ahaydeen oo wixii xumaa ka dhigdhidee waxaan idinkula talinayaa waan idinku boorinayaa inaydaan ka bixin ballantiinii iyo midnimadiinii iyo taladiinii inay sidii mid u ahaato baan kula talinayaa waa ta guud tan gaar oo aan rabo inaan sida gaarka u taabto waa tan mandaqadda aniga degaan doorashadayda ah oo ah dadka degasanaad iyo Highland iyo bari oo aan anigu degaan doorashadayda ah ayaan rabaa si gaar inaan lahadlo dadka halkaa degano laba xanuun baa idin haya maqaada inaad ogtihiin qofku wuxuu dawoobaa marka cudurkiisa la helo ayaa markaa waxaa loo qoraa dawada dhakhtarku dawada u qoraa kadibna dawada markuu cuno haddii ilaahay badnaan iyo caafimaad la damcayo u caafimaad helaa labada cuduroodan haya waa kala fudud yihiin cudurka koowaad waxaa la yidhahdaa dabadhilif doqon ah oo lagu adeegto waa xanuunka koowaad idin haya kaasi waxaad gaar u tihiin maaha ummadda idinla wadaagto dabadhilifka meel walba waa jooga kaa marka waxaan oranaynaa kaliya oo saa ku filan dawadiisuna ay tahay dabadhilifo dufku bax intaasaa saa ku filan dabadhilifo dufku bax cudurka laakiin aad ka kici weydeen oo labaad cudurka labaad oo aad ka kici weydeen haddaydaan iska daweyn oo aydan ka girgiran oo aydan ka dhiidhiinna aydan ka kacayn oo aad u go'i doontaan waa cudurka la yidhaahdo danleyda aan digigaxan danleyda aan digigaxan markaan sharxo danleyda aan digigaxan ee kelmadan danleyda waa garanayaan dadku laakiin waxa laga yaabaa digigaxanay garan waayaan dad badan oo dhalinyaraha dad badan digigaxan waxaa la yidhahdaa qofka aansi ma digigaxdo qofkaasi ma naxoogayo waa naxdintii oo guda fogo xeel dheer wey oo naxdin macnaha aan way dhaaftay ma naxo waa dhaaftay waa ma naxo oo ma naxo oo ma naxo wey danleyda aan digigaxanin cudurka idin hayaa waa kaa dawadana u baahan lana rabo inaad iska daweysaan si kale aan u dhigo dadku qofku haddii madaxu xanuunayo meelu badqabtaa ma jirto madaxu hadduu xanuunayo qofka meel jirkiisa u badqabtaa ma jiro markaas waa meeshii laga hagayay madaxaa idin xanuunaya madaxii baad ka xanuunsan tihiin waayo waxay soo gaadhaya danleydii aan digigaxan jirin inay duuliga xulaan duuliga inay xulaan oo la balaayahay intay waxay rabaan sii qarribeen oo waxay rabaan sii sameeyeen oo dan kasta oo ay wax ku gaadhayeen ay u sameeyeen ciddii ka danaysanaysay ay u danaynayeen marka waxaan idin sheegayaa madaxaa idin xanuunaya qofku markuu madaxu xanuuno marxalado badan baa madaxa inuu moogtahay uu qofka caafimaado ama xanuun koboo loo maraa mar qofku biyo cabaa oo biyo badan intuu cabo uu seexdaa marna kaniin buu laqaa oo kaniinkaa markuu laqo buu cabaar isku dejiyaa ama ku jiifsadaa ama meel ku fadhiistaa waa madax xanuunka sahlan madax xanuunka khatarta ah oo aan tegin isaga waxaa u dawaa soo mataqaanin waxaa u dawaa dab baa u dawaa waa la gubaa soolada halka jiran dadda foorada iyo dhalada iyo laga gubo waa dawadiisu waa dab in la gubo madaxaa idin xanuunayaa in la gubo dawadiisoo dab a mooyaane wax kale oo dawaa oo kale u leeyahay ma jirto wax kaloo lagu daweyn karana male
waayo qof madax xanuunaya dee maxkee wada qabta waxa laga sugayaa muxuu yahay wanaagga laga doonayaa muxuu yahay waxa laga uu heli samayn karaa muxuu yahay waxa uu ku fikiri karaa muxuu yahay waxa uu hagaajin karaa maxay tahay waa waxba hoos madaxa la xanuunaya war madaxayna xanuunaya madaxayna xanuunaya madaxayna marxaladaha soo sheego dabka iyo biyaha iyo waxaan leeyahay biyaha iyo kiniinka iyo madax ku dawoobaya ma idina waa ogtahay wana dabbu ku dawoobaya gubno madaxaan iska gubno madaxa aan iska gubno waxaan idin sheegaya dan layda aan sheegaya oo aan digigaxnay dal uma digigaxdaan oo dad uma digigaxdaan oo sharaf uma digigaxdaan mid ay leeyihiin iyo mid ay mas-uul ka yihiin toonna uma digigaxdaan oo mustaqbal iyo future uma digigaxdaan dadka noocaasa marka ama danlayda noocaasi xaaraan bay inagu tahay ama caybay inagu tahay inay madax inoo ahaadaan oo madaxa inaga saaraadaan miyaynaan ahayn ummad adduunka mustaqbalka rabta miyaynaan ahayn ummad rabta sida ummadaha kale ay noqoto miyaynaan ahayn ummad doonaysa inay ceeb ka fogaato miyaynaan ahayn ummad ku fikeraysa hamiga ummadaha kale leeyihiin intaba wayna waxaan idin sheegaya haddii maalin walba ninkiini rag ahaa oo idinku jiray oo muuqday oo figarka ahaa maalin walba hortiina lagu cuno ama sidii la rabo laga yeelo war xaggaad ku socotaa xaggaad ku socotaa maxaa baaqaydina war maxaa baaqaydina hadalkii mursi muxuu ahaa mursi hadalkiisii wuxuu ahaa haddaad ka tagtaan libaaxyadiina ama aada dishaan u hoojisaan waxaa idin cuni doona eyda dadka kale tii baad ku socotaa tii baad ku socotaa maanta gunnimo waxa idinka dhimani waa kulaastaa boosasataalo wax kasta oo ay ku kacayso anigu weligay bare kama tagin laakiin maanta fikirkan qabaa wuxuu yahay wax kasta oo ay idinku kacayso wax kasta waxay doonto ha noqoto wax kasta oo ay idinku kacayso arrintaa inaan sida loo qaado waxay doonto ha ku kacdo qiimahay doonto ha gaado wax allaale waxay doonto ha noqoto naf ha noqoto maal ha noqoto dhiig ha noqoto wax ay doonto ha noqoto waxaan intee baynu soo fadhinay meeshaynu maraynaa maaha maanta meel waxba la dhowrsado maaha maanta meel waxba la dhowrsado maaha waxaan idin leehay waan hadalkayga ku gabagabaynayaa kuraastan boosaasataada weliba specially kursiga ninka la yihahdo jamaal la yihahdo jamaal horteyna yaan lagu jiidin wallahi inaan gabadhaynu guur lahay oo inaan dadnimo dambe yeelanay oo inaan dib dambe laydin tirnay oo inaan dib dambe ciidinku xisaabtamay waxaan ku gabagabaynayaa maanta waxba baaqidii baa soo xumaada walaala daalay dirtisaa loo tagaa war miyaynaan dimi lahayn war miyaan dhiiginagu jirin war miyaynaan inna wax dhiigi xashaar ahay inagu war miyaynaan danlayda ina baabi'isay gudaheennii baa inaga dilayahay danlayda ina baabi'isay iyo danlayda kale oo ay u shaqaynayaan war waxbaynu ka qaban karna war wallahi waa fudud yihiin iyo billaahi waa sahlan yihiin innagaa wax naga siiyeen waxba hadal badan oo halkaan ka akhriyaatari maayo shacabka mandaqada aan tiriyay oo sanaag iyo bari iyo highland dego kana maanta hebele iyo kursigan reer kanaale iyo kana ciddan le iyo ma jirto waxaasi ha loo midoobo arrintan ha loo midoobo kuraastiinana ummadda kale say uga talinayso kuraastii looga taliyo waxaa soo haray danlaydaan digay gaxan waan idiin sheegay iyaga iyo kuwa kaloo soo dirsanayba dawadoodu waa dab wey waa dab dawadoodu dawo kale male dawo kale haddii kale warta dadka xoolaa waraaco dhowbira noqda dee waxana wax la qaadan karo maaha hadalkayga waxaan ku gabagabaynayaa
ميزان كمان أنا صارنا هاي وكبوسا سيالا كفديس وحب إلى عادو أمنا ميزان كان نقوميا. هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.